kulankan wadatashiga iyo xoojinta xiriirka dabargooyinta tacdiidaha ka dhanka jandarka ee wasaaradaha haweenka ay dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee muddada 3 maalmood magaalada Muqdisho ugu socday ayaa ahaa mid xoog lagu saarayay sidii loo wada qayb qaadan lahaa ciribtirka dhibaatooyinka loo geysto jandarka. Inta kulanka socday ayaa waxaa si guud lagu wada dooday sidii loo horumarin karo sinaanta goobaha shaqada, doorka waxbarashada ay ku yeelan karto sinaanta jandarka, sida dhaqanka loo howlgeli karo jandarka. Sacdiye Maxamed Nuur agaasimaha waaxda jandarka iyo horumarinta haweenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay ahmiyadda kulankan wadatashiga ay la qaateen xubnaha matalayay wasaaradaha haweenka ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe. waxyaabaha aan ka hadalno waxay ahayd achievements-ka ama guulaha laga gaaray dhankaas iyo waliba waxyaabaha aan hiigsanayna aan rabno oo ah in aan helno gabdho si active ah uga qayb qaadanaya howlaha iyagoo waliba xilalka kula tartamaya ragga jooga wasaaradaha. dhinaca kale waxaan aad maalintii labaad oo maanta aan soo gabagabaynayna aan aad uga hadalnay in aan ku xoojino wakiilada halkan ka soo qayb gala ee heer federaal iyo waliba heer dowlad goboleed macluumaad ku saabsan dhinaca gender mainstreaming wax la dhaho isdhexgalka gender. Xamdi Axmed Maxamuud oo ku hadlaysay magaca wasaaradaha haweenka ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ee dowladda dhexe ee ka qayb galayay kulankan wadatashiga ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin sidii ay kaalin weyn uga qaadan lahaayeen ka shaqaynta jandarka. tacdiyo badan way jiraan laakiin sanadaha dambe way soo yaraadeen tacdiyada. waxaan rajaynaynaa markaan ku naqano dowlad goboleedyada noogala soo idmada shaqadaani noogala soo diray shirkaani sida quruxda badan lahoo casharada nagula siiyey ama tababarka nagula siiyey inaan ula naqon doono oo rajaynayna inaan naqano dad wax fahmay dibna looga sii fahmi doono. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ahayd markii dhawaan shirka golaha wasiirada horgeysay inta sharciyaadka jandarka isla markaana ansixiyeen golaha wasiirada taasoo mid lagu xoojinayo in dadka naafada rag iyo dumarba u sinaadaan ka qayb qaadashada go'aamada siyaasadda dalka. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.